بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabka Riyaad Saalihiin baabka xalan ka bilaabnay istihbaab ziyaarati alqubur lirrijal wama yaquluhu zaa'ir wa inna insha Allah bikum laahiqun وإن سهرين أنتم سلفنا ونحن بالأثر هذا كان أقول رئيسنا أنا أقول راتك وجوهنا إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب إنه صلابته وطلبوا الرضا والرجعة وقد اكتوى 7 كيات تضام ميلاد يسكا غوبي اكتوى الورع وترك الشبهات والإثم ما حاك في نفسك حاك والله الله تقول كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعت تكهنت كتاب قبله يفعل له هاي إلا أني خدعت وأدك رواسرة باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها باب كم حكاة الله استحباب العزلة fogaanshada dadka laga fogaado inay sunno tahay cinda fasaadi zamaan markii zamanku uu halaabo in dadka laga dhaxbaxo markaas fiican tahay istihbaab al-uzla wa dheeraansho iyo fogaansho uzladu istihbaabna wax badan soo marteen marka dadka in laga fogaada sunno ah goorma cinda fasaadi az-zamaan وقتك يا زمنكم مركو هلابو أو الخوف من فتنة في الدين أما عند الخوف من فتنة في الدين دين كخوف إنه أبقى إنه دين ككفد النوبه مركو كبقى إنه ضدك كفوق هذا ووقوع في حرام وشبهات يا إنه كعب صدا إنه كله حرام أما الشبهات أو حرام تجينيه ونحوها يوحي لمده قال الله تعالى ففروا إلى الله مركا درينتين الله عرارة إني لكم أنا وذيك وحيدي أهي منه الله حقي سنذير من ذيك قدقة مبين ديكتاب سنة عدية ففروا إلى الله مركا إلهي بالله عرارة يا مركي waqtigaas uu halaabo oo xagga rabbi baa loo jihaysanaya dadkii baa laga dhaxbaxay saas uu ka rabaa baabkan marka shardigaas uu ku xiray dadka in laga fogaado markii zamanku uu fasaado ama diinkiisa uu baqo inuu ka fidnoobo ama xaraam uu ku dhaco iyo shubahaad laakiin haddaan fasaad jirin dadka in lagu dhex jiro ayaa habboon khayraat fara badan baa dadka ku dhex jirkiisa laga faa'iiday ama adigu aad ku taraysaa dadka xumaantii baa ka reebaysaa wanaagii baa faraysaa jumcadii jamaacadii baa ajar keenaysaa ku dhex jirtaa kaligaa markaa tagtid laakiin intaas oo dhan waa ka baxay marka baab dambe ayuu imaamu nawowi uu kan daba dhigay oo munaasab u ah midkaan hadda في عكسه
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك إلهي بان مقلو دهيا إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي marka xadiiska qayb hore ayaa hadda ka maqan oo awalka xadiiska wuxuu ahay Aamir ibn Sa'd ayaa wuxuu leeyahay kaana Sa'd ibn Abi Waqqas fi ibli Sa'd ibn Abi Waqqas oo kamid ah 10 mubashirin bil janna geelisu iskaga dhex jiray baadiyaha fajaa ibnuhu Umar wiil u dhalay oo Umar ibn Sa'd la yiraahdo ayaa u yimid falamma ra'aahu Sa'd markuu meel fog ka arkay wiilkiisii ayuu wuxuu yiri a'uudu billahi min sharri hada ar-raakib ilaahi baan waxaan ka magan galayaa midkaan raakibka gaadiidka saaran shartiisa wiilkii waa yimid fanazala daabadii buu ka degay faqaala Umar wiilkii baa wuxuu yiri anzalta fi ibilika wa ghanamika geelaagii arigaagii baa iska dhex degtay oo dadkii waa ka soo fogaatay wa tarakta an-naasa yatanaazacuuna al-mulka baynahum waxaana ka soo tagtay dadkii ayagoo mulkigii ku doodaya oo isku haysta fadaraba Sa'd fi sadrihi Sa'd ibn Abi Waqqas laabtiisa ayuu garaacay faqaala wuxuu yiri uskut aamus سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت هذا امر نبي كان كما قال دهيا wuxuu marka sharta uga magan galay ninkan wuxuu markuu fiiriyay wuxuu dareemay nin adduunyo inuu yahay oo ku dadaalaya culuwi fil ardi ilaahay buu kama galay marka shartiisa inuu ka badbaadiyo inma amwalukum wa awladukum fitna marka Sa'd wuxuu yiri nabigan ka maqlo dhahaya inna allaha yuhibbu alla wuxuu jecel yahay al-'abd at-taqiya adoonka asaga ka baqaya oo taqwadu maxaarimti inuu ka fogaado iyo shubuhaadkii xalaashiina uu isticmaalo iyo wixii mustahabaad iyo waajib ahay qofka la yimaada taqi noqonay ilaahay marka wuxuu jecel yahay ninka taqiga ah adoonka taqiga al-ghaniya ghina nafsiga ku jiro wa samara laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina nafsi naftiisa qofka ay kalsan tahay oo rabbi wuxuu siiyay ku kalsoon oo ku qanacsan kaasa wuxuu yahay al-ghaniya laabta iyo xabadku taajirka yahay الخفية قرصون أو عبادتيسا وقضامي الله عبادتيسا وضدكينا كقرصون أمور تنفتيسا نكو مشغولي ننكاسا وحيهي الخفية والخامل المنقدر إلى العبادة قف قرصون أو ضدك إسان مشوركو أهين أكتوذا رواه مسلم مركا أدون كان قرصون ومدتك كدونتي أو انقضاء إلى العبادة هل كسوى استحباب العزلة عند فساد الزمان أو سعد بن أبي وقاص مركي دقال دي وحي دعان أو صحابة دي لبقوا كدعي وأسكفوا قادي وعن رواه مسلم المراد بالغني وغني النفس قف نفتيسا أي كالسنتهاي كما سبق في الحديث الصحيح ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفسي حديث كان كسو مرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال رجل نبا وحيري أي الناس أفضل يا رسول الله إلهي رسولك سيو ضدك يا وفضل بدن oo kamida dadka ugu fadliga badan wala haddaan saas la dhihin ambiyada wax ka fadli badan ma leh dadka kale ayaa ka fadli badan laakiin waxa loo jeedaa dadka caadiga ah yaa ugu fiican oo ugu fadli badan qaala nabigu wuxuu yiri mu'minun qof mu'mina yujaahidu binafsihi wa maalihi fi sabiilillah oo nafsadiisa iyo maalkiisa
jidka ilaahay ku dagaalamay qaala uma man yaa ku sii xiga qaala uma rajulun nin baa ku xiga muctasilun fogaaday fii shicbin min ashicaab waddo dhex maraysa buuraha shicbi waa aariiq bayna aljabalayn laba buurood waddada u dhaxaysa meel jiir ah ama wadiiqo ah halkaas waxaa leedaha shicbi meesha buurta ay ka dilaacsantaha la maro waxaa ku xiga marka rajulun nin muctasilun fogaaday waa maxalu shaahidka ilaa baabu istixbaabi alcuslati cinda fasaadi الzamaan bay ahayd nin ku fogaaday fii shicbin waa meel waddo ah min ashicaabi waddooyinka buuraha dhexmara ka mid ah yacbudu rabbahu oo rabbigiisa halkaa ku caabudaya wa fii riwaayatin yataqi llaaha cibaadadii laftigeedii wey alluu ka baqayaa wayadacu nnaasa min sharihi dadkana wuxuu kala tegay shartiisii ilaa ayada laftigeeda waa soo marnay inay sadaqo tahay dadka inaadan dhibin oo aad kala tegtid dhibkii sadaqay kuu noqonaysa muttafaqun caleyhi bukhaarihi muslim xadiiskaa marka waxaan garanay afdaliyada jihaadka qofka naftiisa iyo maalkiisa ku dagaalama fii sabiili illaah asagaa dadka ugu fiican waxaa lagu xijiyey qofka fogaaday meel buur waddo maraysa oo halkaa ilaahay ku caabudaya oo dadkana fidnadiisii iyo dhibkiisii kala tegey marka hadda waxaa la fadilay istixbaab alcusla oo dadka in la dhex galo la dheeho waxaa laga fadilay fogaashada waa wakhtigeedii marka haddii zamanku uu fasaado laakiin waa noo imaan doontaa in cuslada laga fiican yahay haddii qofkan fitan uu ka nabadgelayo sidaasaa jumhuurtu qabtaa oo baabka dambaan ku arki doona wa canhu abi saciid alkhudri radi allahu canhuma qaala qaala rasul lah sal lla alay slam yuushiku waxaa arrinku u degdegayaa an yakuuna khayra maali lmuslim qofka muslimkaa maalkiisa inuu ugu khayr badan yahay hanamun ari yatabicu ama yatbacu uu ku raacayo biha arigii shacafa aljibaal buurta dhaladeeda meesha u sarraysa fiinta ah wa mawaaqica alqatri iyo meesha roobka uu ku da-o ku dhibco yafiru bidiinihi min alfitan waa maxalu shaahidkii isagoo diinkiisa kala cararaya fidno buu halkaas u fogaaday yuushiku wuxuu u degdegayaa an yakuuna khayra maali lmuslimi qofka muslimkaa maalkiisa midka ugu khayr badan inuu noqdo hanamun ari yatabicu bihaa arigaasoo ku raacayo shacafa aljibaali buurta dhaladeeda ama buuraha dhaladooda wa mawaaqica alqadri iyo meelaha togaga ah oo butuun alawdiya meelaha daaqa iyo wax laga raadsado oo roobka ku da-ay mawaaqic alqadri qadriga waa roobka mawaaqicdana waa meelahaas uu ku da-ay yafiru bidiinihi min alfitan isagoo diinkiisa kala cararaya fitno rawaahu lbukhaariyu wa shacafu ljibaali aclaaha waa meesha buurta dhaladeeda ugu sarraysa marka xadiiskaana wuxuu noo caddeeyey qofka muslimka ah waxaa u khayr badan maalkiisa ari uu meesha ku raacayo isagoo dadkiina ka tegey ilaahayna maaragtay meesha ku caabudaya diinkiisiina la cararay fitno uu ka cabsanayo marka markaasoo kale waa markay ugu khayrka badan tahay in dadka laga fogaado haddii aadan waxba ka qaban karin laakiin inta dadka lagu dhex jiri karo oo wax loo sheegi karo wax la tari karo waxaa fiican ikhtilaadka sidaasayna ambiyada ilaahay ahaayeen oo dadka loo soo diray way dhibeen ilaa ay gaarsiiyeen qaarkood inay dilaan
ama ay sigeen maca daalika marna kama tegin bal qaarkii tegay waa lagu canaantay waa tii nabiyullaahi yuunus ibnu mataa kalluunkii u laqay markuu carooday id dahaba mugaadiban wadannuuni id dahaba mugaadiban fadanna an lan naqdira calayhi tegitaankaasa marka lagu qabsaday fasax la-aanta ah ee dadka in lagu dhex jiro khayr badan baa maaragtay laga faa'iidaysanaya janaasadoodii baa la raacaya maydkoodii baa lasoo booqanay yacni koodii jiranaaya lasoo booqanaya salaantii baa la faafinaya alamru bilmacruuf wannahyi cani almunkar tacaawun cala albiri waataqwa jamaacaadkiioo la yimaado khayr badanaa ku jira dadka inta lagu dhex jiro adiga laftiga waxaa laga yaabaa shaydaanku kaliga inuu kaa faa'iidaysto oo uu ku fogaysto wa can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy sal lla alay slama qaala maa bacaa allaahu nebiyan nebi alla ma soo bixin ilaa haddii uu soo bixiyo nebi soo saaray raaca alghanama nebigaas ari buu raacay xikmada ku jirtana waxay tahay tababar inuu ku qaato ariga waa xoolaha la dhaqdo waxa ugu dhibka badan mid geed xaluusha mid meel saloosha mid halkan ka baxa aad u dhib badan yahi lama celi karo waa lagu dhibtoona dadkuna waa sidaasoo kale marka dadkii marka inuu maamulayo dad qofkan waxaa lagu ogaanayaa xoolahan lagu soo tababaray markuu xalanahaas ka baxo baa la geynaya dadkii loo diray isagoo tababarkiisa qaba faqaala asxaabuhu asxaabtii nebigaa waxay yidhaahdeen waa anta oo adigana ari baan raacday qaala nebigu wuxu uhi nacam haa ari baan raacay kuntu arcaahaa arigii baan ku ilaalinayay calaa qaraariida liahli maka reer mako ayaan lacag yaroo jajaba oo diinaarkiioo loo dhigay ama dirhamkiioo intaasoo qaybood laga dhigay waa juz ka mid ah diinaarka qaybihiisa oo ay leeyihiin nisfu cushrihi yacni 10 markii loo dhigo meel nus uu ku aada qaar waxay leeyihiin 6 qaybood buu meel ka yahay adu waa lacag yaroo jajabo dhururuq iyo wax la mida qaraariid marka reer maka waxaan ugu raaci jiray ariga calaa qaraariida liahli maka lacag yaroo jajaba rawaahu albukhaari xadiiskaa marka waxaan ka qaadanay nebiga calayh isalaatu wasalaam in uu ari soo raacay oo arrinkaa lagu soo tababaray oo meeshaas uu baadiyaha ah ayuu tegi jiray wa canhu abi hurayra radi allahu canhu can rasuli lah sal ly slam annahu qaala min khayri macaashi الnaasi dadka noloshooda waxa u khayr badan lahum linnaas rajulu nin mumsikun haysta ku dhegan cinaana farasihi fii sabiili اllaah faraskiisa jarihiisa ama xakamihiisa yatiiru calaa matnihi oo uu ku duulayo ku boodayo faraska dhabarkiisa matnigu waa dhabarkii kulamaa samica haycatan mar kasta oo cod uu maqlo iyo shaqar aw fascatan ama argagax iyo wax laga naxo daara calayhi faraskii buu ku boodaya ku duulayaa yabtaqi lqatla isagoo dalbayo raadinaya dil waalmowta aw ilmowta madaanahu ama geeri buu ka raadinayaa meesha geerida laga maleeyo oo dagaalka oo kale aw ilmowta ficnaa laheed aniga wuxuu ii dhigay yabtaqi lqatla waalmowta madaanahu marka aw ilmowta tanwiicaasa fiican ama geeri ama dil waana isku dhow yihin kale min khayri macaashi الnaasi lahum dadka noloshooda macaashku waa noloshooda iyo xayaatadooda waxa u khayr badan waxaa ka mida rajulu nin mumsikun haysta cinaana farasihi faraskiisa jarihiisa ama xakamihiisa iyo liijaankiisa fii sabiili اllaahi caynaan ay dadku yidhahdeen soo maha iska carabi cinaanka waa faraska waxaa lagu hogaaminaya xarig
yadiiru calaa matnihi faraska dhabarkiisu ku duulayaa kulamaa samica haycatan markuu cod maqlo oo dagaalka aw fascatan ama wax laga naxo argagax daara calayhi faraskiibuu ku boodayaa oo ku duulayaa yabtaqi alqatla aw ilmowta madaanahu geeri buu raadinayaa ama in la dilo madaanahu waa meesha mowdka laga maleeyo meesha dagaalka waa ka dhow yahay mowdku aw rajulun min khayri macaashi الnaasi lahum rajulun fii gunaymatin nin ari yar ku haysta gunayma waa tasqiiru hanam gunayma waa tasqiiru aw rajulun fii gunaymatin ari yar buu wuxuu ku haystaa fii ra'si shacafatin min haadihi shacaf buur dhaladeed oo buurahan ka mida aw badni waadin ama tog calooshiisa min haadihi alawdiyati waadiyadan ka mida yuqiimu salaata waa yacbud llaha meesha aadu ama yataqi llah yuqiimu salaata salaaduu toosinayaa oo meesha ku oogayaa wayu'ti zakaata sakadana waa dhiibayaa wayacbudu rabbahu rabbi waa caabudayaa xataa yaأtiyahu اlyaqiin ilaa geeridii u timaado yacbudu rabbahu kulli waa isku soo qaadanaysa ilaa salaada iyo zakadu waa cibaadadii ka mid yihiin laysa min annaasi ilaa fii khayr dadkana wax aan khayr ahayn ugama sugna oo shartii oo dhan waa kala tegey waa riwaayadii hore soo marnoo kale wayadacu naasa min sharihi bay la mid tahay laysa min annaasi ilaa fii khayr dadkana waxaan khayr ahayn yani ugama sugna rawaahu muslim yatiiru ay yusricu waa degdegay duulitaan wa matnuhu dahruhu gaadiidkii dhabarkiisii wاlhaycatu sawt lilxarbi waa cod dagaalku u leeyahay wاlfazcatu naxwa fazcaduna waxay la mid tahay sawdka xarbada oo waa laga naxayaa argagax wamadaanu shayءi almawaadic alatii yudanu wujuuduhu fiiha waa almawaadic meelaha alatii yudanu loo malaynayo wujuuduhu fiiha mowdka inuu ka dhow yahay oo laga helayo wاlgunaymatu bidami اlgayni taskiiru اlghanam hanam oo la yareeyo ari yarow ari buu ahay ari yar wالshacafatu bifatxi الshiini wاlcayn wahiya aclى اljabal shacafa aljibaal aclaahna oo soo marnay xadiiskana marka wuxuu noo caddeeyey dadka markii laga baqo fidnadooda in qofku uu baadiyaha iska tago oo ari iyo wax iska samaysto ilaahayna meesha uu ku caabudo dadkana shartiisa uu kala dhaqaaqo ariga marka xikmada ku jirta maxay tahay oo dadku inay samaystaan ariga waxaa la yidhi barako badan baa ku jirta dadka yani arileyda ma kibir badna waa dad mutawaadiciina laakiin dadka geelleyda iyo fardoolayda waa niman aada u kibir badan oo santaagay arigu laakiin waa ahlu tawaaduc waana barako badan yahay arigu oo waxaa laga yaabaa maantay haddii marti kuu timaado intaasoo neef inaad maarata u gowrici kartid laakiin neef geela iyo neef loo ah wax la gowrici kara ma jiraan marka waa barakaysan yahay baabu fadli الاkhtilaadi bالnaas baabkii hore cagsigiisii alcuslow ahaa waa laga fogaanayey hadda waxa weye baabu fadli الاkhtilaadi bالnaas dadka in la dhex galo ikhtilaadku waa dhexgelitaan fadliga ku jira wa xuduuri jumacihim jumcooyinkooda dadka in la xaadiro wa jamaacaatihim iyo jamaacaadkooda oo ay maaragtay iskugu imaanayaan jamaacadaha salaada jumac waa jumcadii caadiga ahayd oo waajibka ahayd jamaacaadkuna waa shanta salaadood xuduuri jumacihim wa jamaacaatihim saasay kala yihin
jumcooyinkooda in la xaadiro dadka iyo jamaacaadkooda wa mashaahid alkhayr iyo khayrka meelihiisii mashhad waa meelaha khayrka ciidahoo kale iyo wa majaalis adikri macahum iyo majaalista ilaahay lagu xuso oo la fariisto ayagana in lala soo xaadiro wa ciyaadati mariidihim midkooda jiran in lasoo booqdo wa xuduuri janaa'isihim janaasadooda in la xaadiro dadka muslimiinta ah wa muwaasaati muxtaajihim kooda dhibaataysan in la xiriiriyo muwaasaat baab dhanaa kusoo marteen baabu lmuwaasaat waaliithaar muwaasaati muxtaajihim kooda dhibaataysanoo baahiyeysan in la xiriiriyo wa irshaadi jaahilihim midkooda aan wax aqoono jaahilka in la hanuuniyo wa gayri daalika iyo intaas waxaan ahayn min masaalixihim oo dadka masaalixdooda iyo danahooda waa liman qadira cala alamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar liman qadarana waa noqon kartaa qofkii awoodi kara in uu dadka macruufka faro xumaantana ka reebo liman qadira waa awooda qadira yaqdaru ama qadara waa awooday wagayri dalika min masaalixihim liman qadira cala alamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar wa qamci nafsihi naftiisana ka celinaya can iliidaa in dad la dhibo qamci waa manci iyo xabsi qamci nafsihi naftiisu ka joojinaya oo ka mancinaya can iliidaa dadka in la dhibo wa sabara cala aladaa in dadka la dhibana waa ka sabraya wa sabara wuxuu ku sabraya cala aladaa dhibka iclam imaamu nawowi wuxuu waxaa ogaataa ana alikhtilaada binnaas dadka oo lagu dhex darsamo cala alwajhi aladii dakartuhu wejigii iyo dariiqii aan soo sheegay huwa almukhtaar sidaasaa la doortay aladii kaana calayhi rasuulu llahi sal alla alay slam oo rasuulka ilaahay uu ahaay rasuulku dadku dhex geli jiray waa wacdi jiray waxbuu u sheegi jiray waa kama tegi jirin wasaa'iru alambiyaa'i iyo ambiyada inta ka soo harta nebiga ama dhammaantood salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim ilaahay naxariistiisa iyo nabadgelyadiisa calayhim ambiyada korkooda allaha yeele wakadaalika sidaasoo kale waxaa ahaay oo dadka ku dhex darsami jiray alkhulafaau araashiduun khulafadii hanuunsaneed abu bakar cumar cuhmaan cali waman bacdahu min asaxaabati waataabiciin iyo dadkii ka dambeeyey oo saxaabadii iyo taabiciintii taabiciintu waa dadkii saxaabada arkay waman bacdahu min culamaa'i lmuslimiin iyo taabiciinta dadkii ka sii dambeeyey oo culummadii muslimiinta atbaacu taabiciin wa akhyaarihim iyo dadkii doorka ahaay khiyaartaa wanaagsanaay wa huwa sidaas ikhtilaadku madhabu akari taabiciina waman bacdahum taabiciinta badidood sidaasay ku tageen madhabkaas ay ku tageen iyo kuwa ka sii dambeeyey wa bihi sidaas ikhtilaadka ayaa qaala shaaficiyu wa axmadu wa akharu lfuqahaa'i radia allahu canhum ajmaciin imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo fuqahada intooda badan allah ka raali noqdeen dhammaantooda sidaasay ku tageen marka ikhtilaadkaa fiican qaala allahu tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa alla samafalkiisa iyo taqwadiisa isku gargaarsada isku kaalmaysta waa soo marna aayadahan walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan hana isku gargaarinina isku kaalmaysanina dembiga iyo collaytanka waalaayaatu fii macnaa maa dakartuhu aayaadka macnaha aan soo sheegay aayaadka macnahaas ku soo arooray kaiirat macluuma kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waa fara badan yihin baabkan marka axaadiis fara badan baa munaasib ahaan lahayd in la keeno laakiin imaamu nawowi waa ishaaray laakiin axaadiis badan oo in la keeno ay munaasab ahayd baa jirta
horena aan ku soo marnay dadka soo booqanayay oo aan soo marnay fadaa'ishooda dadkii isjeclaay oo wajabad maxabatii lilmutaxaabiina fiya wاlmutajaalisiina fiya wاlmutazaawiriina fiya wاlmutabaadiliina fiya daraaddeed dadka wax isku dhiibaya ama isku soo ziyaaranaya ila ziyaaradu waa ikhtilaadkii ka mid tahay dadkii lagama fogaan baabu tawaaduci wa khafdi اljanaaxi lilmu'miniin baabkan wuxuu ka hadlayaa atawaaduc waa isdullayn inuu qofku hoos isku dhigo usan kibrin waa did اlkibri atawaaduc inuu qofku hoos isku dhigo oo dullinimo muujiyo waa naqiid atakabur waxay ka soo horjeedaa kibirkii takaburku waa tarafuc cala annaas dadka la iska saramariyo tanna marka waa tawaaducu waa alinkhifaad lilgayr dadka in hoos la iskugu dhigo oo qofku isku arko dadka midaan ka weyneyn atawaaduc hoos isku dhigid wa khafdi iljanaaxi dhinaca oo la raariciyo lilmu'miniin janaaxa waxaa loo isticmaalaa ama garabka shimbiraha shimbiruhu markay ilmahooda rabaan inay difaacaan baalkay ku dadaan oo ku qariyaan ama wax dhibaata markay arkaan marka dhinacaaga inaad u jilcisid oo u dabcisid dadka mu'miniinta ah qaala allahu tacaala wakhfid janaaxaka garabkaaga u raarici liman itabacaka min almu'miniin nebigaa lala hadlay dadka ku raacay oo mu'miniin ah marka tawaaduc waa muuqdaa oo khafdi iljanaax aayadda waa ku muuqdaa wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum qofka ridoobo idinka mida fasawfa yaأti illaahu biqowmin yuxibuhum mar dambaa in la keeni doonaa oo la imaan doonaa qowm yuxibuhum jecel yuxibuunahu ayaguna alla jecel adilatin cala almu'miniin maxalushaahidka waa kaas adilatin cala almu'miniin mu'miniintay ku jilicsan yihiin acizatin cala alkaafiriin gaaladana waa ku adag yihiin marka ruxamaau baynahum waa halkaas ka dhiganta adilatin cala almu'miniin waa tawaaducii iyo khafd ljanaaxi wa wa qaala tacaala yaa ayuha annaasu dadow inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig aadam iyo xawaa wajacalnaakum waxaan idinka dhignay mar haddii laydinka abuuray lab iyo dhadig in marka isku mid baa tihiin hal meel baa ka soo maaragtay farcanteen qof ka sarreeya bale halkaasuu ka imaan karaa marka inaan la iska saramari karin dadka wajacalnaakum waxaan idinka dhignay shucuuban shacbiyaal shacbulyaman shacbu sacuudi shacbu soomaal shacbu ethoobiya shacb waa dad dhan oo qabiilka waa ka sarreeya wa qabaa'ila iyo qabiil waxaa looga dhigay shucuub iyo qabaa'il litacaarafu inaad isku garataan laakiin inaad isku faantaan ama istishaan ma ahan litacaarafu qofkan intaas ku jira qofkan qaraabaa tihiin waxaa lagu khatimay ina akramakum cinda allaahi atqaakum qabiilka tacaaruf kaliyaa laga wadaa qofka idinkuu karaamo badan ilaahay agtiisa waa midka idinkuu cabsida badan qiimuhu halkaas waa soo marray man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu qofka camalkiisa uu dib u dhigo nasabkiisu ma dadejinayo wa qaala tacaala falaa tusakuu anfusakum naftiinna ha tahirinina oo naftiinna ha nadiifinina huwa aclamu biman itaqaa ilaahay baa ku cilmi badan qofka taqiga ah adugu ha isnadiifin oo ninka ugu fiican dadka ha iska dhigin halkaas waa marka inaa hoos isku dhigtide aadan issaro marin
وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف ودواقين رجالا يعرفونهم بسيماهم waxay u dhawaaqeen rag ay garanayaan calaamadooda iyo sumadooda qaaluu waxay ku yiraahdeen ma aghnaa cankum jamcukum muxuu taray maalkii aad arurinayseen wamaa kuntum tastakbiruun iyo kibirkii aad iskibrinayseen halkaas way macna shaahidku kibir ma ahayna waxay ahayd inay adduunyada markay joogaan tawaaducaan ee muslimiintii iska sara mariyeen oo ku kibreen waaba kuwaana haaulaa'i kuwaan aladiina aqsamtum oo aad ku dhaarateen adduunyada markaad joogteen laa yanaaluhum ullaahu biraxma ilaahay naxariistiisa inaysan gaarayn waxaaba lagu yidhi udkhulu ljannata jannada gala laa khawfun calaykum cabsi mustaqbalka idima hayso walaa antum taxzanuun wixii aad ka soo tagteenna uma murugoonaysaan marka dadkan waxaa lagu dhaleeceeyey kibirkii inay hoos isku dhigaanay ahayd ee waa kibreen mu'miniintii yidhaahdeen waa kuwaana dadka masaakiinta maxay haystaan ay ku jeesjeesay وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي الله وحي وحيودي أن تواضعوا إن هذا هوس اسكو ديكتان حتى لا يفخر أحد على أحد إلى أوسن قف نقف كلا أفان أو سكسر مرين ومعنى شاهد كيف أن تواضعوا ولا يبغي أحد على أحد قف نقف كلا أوسن ظلم بغي وظلم سلاسة إلهي وحيودي رواه مسلم marka xadiiskaas waa ku caddahay in ilaahay subxaanaه wa tacaala nebigiisa u waxyooday in aan la kibrin oo dadku qaarba qaarka kale uusan iska sara marin fakhrigu marka waa iddicaau alcadama wاlkibri washaraf qofka wuxuu sheeganaya inuu asagu isla weyn yahay oo sharaf iyo qiimo dadka dheer yahay fakhr wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul اlah sal ly slam qaala maa naqasat sadaqat min maalin horaan usoo mara xadiiskan sadaqo maal ma nuqsaamin oo aan kusoo marray laba tafsiir tafsiirka koowaad oo ahay in daahirkeeda marka la fiiriyo sadaqada inaan waxba nuqsaamayn oo ilaahay u barakaynayo ama hawaabkeedii baa helaysaa labada tafsiiran kusoo mara wamaa zaada allaahu cabdan bicafwin alla uma kordhiyo addoon cafin uu qofkii dulmiye iska cafiyo ilaa cizan sharaf moogiye qofkan marka cizi baa ilaahay u kordhinayaa oo dadka agtooda u qiimo ku yeelanaya iyo sharaf ama hawaab baa u kordhaya labadaasa kusoo marnay wamaa tawaadaca axadu lilaahi maxalu shaahidkeeni qof ilaahay dartiis hoos iskuguma dhigo isma dulleeyo ilaa rafacahu اllaah ilaahay baa sare u qaaday mansiladiisa iyo qiimihiisa ayadana laba tafsiiraan kusoo marnay ajarkii baa u kordhaya ama dadka agtooda wuxuu ku noqonaya nin qiimo sare leh rawaahu muslim maxalu shaahidkeeni wamaa tawaadaca axadu lilaahi baabu tawaaduc baan kusoo jira وعن أنس رضي الله عنه أنه أنس مر على صبيان caruur yar ayuu soo maray fasallama calayhim anas ilmihii buu salaamay wa qaala wuxuuna yidhi kaana الnabiyu sal اله alay slam yafcaluhu nebiga sidaanuu samayn jiray oo ilmaha markuu soo maro nebigu ilmuhu salaami jiray marka tawaaducay ku tusinaysaa ilmihii iskama kibrin ilmo yar yaroo markuu soo maro salaanta marka dadka dhan in la gaarsiiyo xataa ilmaha yar waxay u tahay tamriin iyo tababar oo ku barbaarayaan marka nebiga naxariistiisa iyo tawaaduciisay ku tusinaysaa waana mashruuc mar hadduu nebigu uu sidaas laazimay ilaa nebigu saasuu samayn jiru leeyahy
وعنه أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة أدونت وحي أهاد من إماء المدينة مقالة المدينة أدومد إذا كمذا لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم نبي قعنتيسا أي قبسانيسي oo maqsuudka uu yahay akhdiga gacanta la qabsado laazimkiisa yaani nabiga waa ma diidayn oo waa u hoggaansamayay waa u tawaaducay meesha tira iraac ayuu raacay laakiin nabiga gacanta qabsanaya ma ahan nabigu ma masad yaduhu yad imra'atin ajnabiyya waligiis ma taaba hatta mubaayacada markuu la mubaayacona afku kala mubaayacona dumarka ragga buu gacanta kali jiray laakiin waa laazimkii waa maashi yiraahdo iraac hadii la yiraahdo iraac iska raacay marka waxay ku tusinaysaa nabiga khuluqiisa iyo tawaaduciisa maqsuudka marka akhdiga biyadihi la yiri waa laazimkiisi oo ah arifqu wal inqiyad inuu jilicsanaado nabiga oo hoggaansamay maashi markaas ay doonayso madiina أي الراعي ضديس أجده إن كانت الأمة أضنت وحيها من إماء المدينة الضامضة مدينة كمذا لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم كعنت النبي قبنا يسي فتنطلق به حيث شاءت مركز الله هذا ماشي أي ضنته رواه البخاري وعن الأسود ابن يزيد رحمه الله وتابعي قال سألت عائشة رضي الله عنها عائشة وحن سؤالي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قرقي سنبي محوك سمين جري مركو جوغو ما كان النبي يصنع في بيته قال وحتر عائشة كان وحوها يكون مدء هذا في مهنة أهله يعني عائشة وحكوة مهنة خدمة أهله أهلkiisu nabigu adeegayay guriga shaqada laga hayo hadii alaab la soo qabanayo hadii wax la sameeynayo saasuu nabigu khuluqdiisa ahaad gurigu ka shaqeynay adoo karis tahay hadii xaaqid tahay hadii wax qabasho ay tahay wax la wuxuu qabanayo dada marka hadda waxay leeyihiin anigu ma dumar baan ahay guri ma xaaqi kara shaqadan waa shaqo kaalmo u baahan ilmaha xaar ka dhaq markay ku timaado xaar ka dhaq kaalmee ilmahaagii waa ayaa ku daynaysaa ayadii wax laga yaala jikada ku jirto cunugiina halkan uu maaragtay xaar qasayo aduu marka ayadaa wax ka sugaysaa inay cuntana ku kariso cunugiina xaar ka dhaqdo markaa jikada maaragtay samee oo wixii kaalmo ah meeshii maaragtay wax loo baahan yahay قبل نبي محمد سمي جري كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله غير نبي أذيقي فإذا حضرت الصلاة صلاة مركي تماضو خرج إلى الصلاة صلاة بحي أنت كان القرب كشغين رواه البخاري وحصل هذا ضدك هذا حوالي مالها كيم يتغربها مالها قاركود هذا كسي الليتين لكن مالها قاركود xoogaa in wax la qabto oo qofku loo kaalmeeyo oo maartay dhibaataysan tahay waa loo baahan yahay xadiiska marka waxaan ka qaadanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan guriga ayuu ka shaqaynayay oo uu markuu yimaado u adeegay reerkiisa waana maartay sunno wanaagsan fadiilada jamaacadana nabigu ma gafi jirin markii salaada ay timaado waqtigeeda guriga waa ka tagi jiray wa can abi rifaacata tamiim ibni usayd radia allahu canhu qaala intahaytu ila nabiy sal lla alay slam nabigaan soo gaaray wahuwa yakhtub isagoo khudba akhrinaya faqultu waxaan yaa rasuula allah rajulun gariibun anugu waxaan ahaa nin gariib ah jaa'a waa yimid yas'alu can diinihi isagoo diinkiisa su-aalaya laa yadri maa diinuhu aan ogeyn diinkiisu wuxuu yahay waxay ku filan tahaba rajulun gariib mar hadduu yidhi nin reer magaala ma ahanoo magaalada madiine ma joogin meel kaleu ka yimid oo fog
وغريب dhulkiisii ka soo tegay jaa'a yas'alu can diinihi wuxuu u yimid inuu diinkiisa weydiiyo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laa yadrii maa diinuhu diinkiisa wuxuu yaana ma oga oo ma yaqaano faaqbala calaya rasuulu llahi sal lla alay wasalam abi rifaaca tamiim wuxuu yihi nabigu khudbadii intuu ka tegey aqbala calaya rasul lah sal l sl nabiga isoo aaday wa taraka khudbatahu khudbadiisiina waa iska daayo waa ka tegey xata intahaa ilaya ilaa aniga uu soo gaaray ninka arrintiisa waa muhim khudbada maxaa loo sheegaa usbuucaas wixii dhacay oo khaladaada iyo wixii macaasi iyo munkaraad jira la isku sheegaa soo ma ninkan wuxuu u baahan yahay diinka in loo sheego khudbadii nebiga intuu iska daayo ninkan wax u sheegay fa utiya bikursiyin kursi baa nebiga loo keenay faqacada calayhi kursigii uu ku fadhiistay wa jacala wuxuu bilaabay nebigu yucallimunii mima callamahu اllah inuu ibarayo alla wixii uu baray uma ataa khudbatahu khudbadiisuu u yimid faatama aakhirahaa waa dhammaystira marka intii dambe tacliimtii markuu ninkaa dhameeyey rawaahu muslim taas waxay ku tusinaysaa marka tawaaduca nebiga khudbadii muhimkaeda waajibka ahayd iyo intuu ka soo tegey ayuu u yimid ninkan oo uu waxbaray su-aasha saa'ilka waxaa loo baahan yahay in uu taladuf iyo cibaaro sahlan rajulu gariib jaaءa yas'alu can diinih laa yadrii maa diinuh erayas aada u fudud warkaan wax ii sheeg canaan iyo midna kuma jirto indhaadayg erayo ludfi ah ayaa ku jira marka waxaa xadiiskan ka faa'iidaysana nebiga tawaaduciisa iyo ummaddiisa sida uu ugu naxariisanayey oo ugu naxayey garabkana u raaricinayey waxaan kaloo ka faa'iidaysana taqdiimu ahami اlumuuri fa ahamihaa arrimuhu si u kala wen yihiin khudbadii hadda waxaa ka muhiimsanaaday ninkan jaahilkaa in wax la baro ayadaa muhiimadu ay noqotay waxaa laga yaabaa qawaaciddii islaamka iimaankii islaamkii iyo inuusan aqoon marka in wax la baro oo kayfiyadii maaragtay islaamka loo soo geli lahaa iyo in loo sharxo wixii waajibaada lagu leeyahay salaad iyo soom iyo zake iyo waxaasoo dhan laakiin adiga waxaa laga yaabaa inaad ka fakertid muxuu nebigu khudbada u jaray wax ka muhiimsana meesha yahay khudbada وعن أنس رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم كاana إذا أkلa طعاaما raashin markuu nebigu rabo inuu cuno kaana إida أkلa طعاaما markuu cuno laciqa أصaaبicahu ثaلاثة farihiisa saddexdaa u leefi jiray fartaas la yidhaha murugsatada iyo midda dhexe iyo midda ku xigta badana saddexdaas alwusطى iyo الsabaaba iyo ibhaam tan suulka saddexdaasa badanaa wax lagu cunaa waxyaalaha adag iyo kaana idaa akala طacaama laciqa asaabicahu ثaلاثة farihiisa saddexdaa u leefi jiray qaala wuxuu yidhi anas wa qaala nebigu wuxuu yidhi idaa saqadat luqmaةu axadikum qofkiin hadday luqmadi ka dhacdo wixii afka la geliyaa luqmad la yidhaahdaa falyumid ha zuuliyo ha ka tirtiro canhaa luqmadaas aladaa wixii dhib ah wasakha walyakulaha ha cuno walaa yadachaa lishayطaan shaydaanna yuusan uga tegin shaydaankaan ku cayilaya raashinkan meesha aa uga tagtay oo dhulka yaalla wa amara nebigu wuxuu amray an tuslata alqascatu xeerada in la murdiyo tuslata waa in la murdiyo qaala wuxuu yidhi nebigu fainakum laa tadruuna waxaa loo leeyahay xeerada hala murdiyo gacmahana hala leefo fainakum laa tadruuna ma ogidin adinku fii ayi طacaamikum اlbaraka raashinkiina meesha barakadu ku jirto ma midka horaa cuntaya ma midka faraha ku yaalla ma midka xeerada ku haraya ma taqaanid adiga kulli marka kamil isku dhammaystir baraka ku jirta meesha raashinka marka inaad leeftid ha ka baqin hana ka sheexin hana quursan nebi moxamed baa saas dhahaya
waxa adiga ka faanaysid waa gacantaadii oo inta soo faraxalatay wax ku cunaysay ash kala marka male رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري حديث كاس متكلم أكو جرا tan marka waxayna tusinaysaa aadaab wanaagsan iyo sunno wanaagsan oo habka raashinka loo cunayo raashinka gacanta midka ku haray iyo midka xeerada ku haray labadaba kana waa la leefay kana waa la murdinaya farihi laftigoodii laakiin dad baa waxay u maleynayaan inay tahay dabaadi iyo wax laga tegay oo rajci ah laakiin ma ahan waa sunno xadiiskan hore soo marnay daa xusantihiin abwaabtii sunankan ku soo marnay وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم وصامر هدر دو نبي الله مصابحين إلا هدو صاري أربو راعي قال أصحاب النبي وأنت أذقنا فقال نعم كنت أرعاها على قراريد لأهل مكة رم مكة أيان حقول راعي العق مارت قراريد وججبة ودراهم أما درهم يعني قيبهد رواه مسلم تاسع قد سنة التواضع النبي عليه الصلاة والسلام أري وما رددت وحكو ترنا يعني حرفة ليدته لكن وتببر وعنه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول لو دعيت هذه اللي يقول ياره أول هذا قرياس وحا يري هبل أو وحا طال إلى كراع مجن أما كراع لو دعيت هذه اللي يقول ياره إلى كراع مجن مجنت dadku ay yaqaanaa marayna waa lugta meesha ugu hooseysa ali raada shanshada ka hooseysa kuraac arabi lagu yiraahdo Soomaaligana waa maaratay majin aw diraa'in ama maaratay tagoog hadii la igu yeero la ajabtu waan ajiib laha yiri nabi walaw uhdiya ilayya hadii la isoo hadiyeeyo guriga la igu keeno diraa'un majin وحجدا تجوج أو كراع أما مجن لقبلت هذه أقبل لهاي رواه البخاري وعلى غيابه ضدك واجه هرين لا يسجري أما لا سكتوري جرابة مجنت يرافق وحاس رب سما وأيضا دماغ وعلى غيابه ضدك لكن وايدي هراء وحبا ما هاي وحاس مركل اللي إذا يلا حقيره يا النبي وحولي هدي لا إيسو هدية أما الله إيكانو أما الله إيوعولي رماشا سوحاسا كجرا وان أجيب لهاي أما وان أقبل لهاي هدية داس تاس معي كنت السمركة تواضع عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه سوى حباء حقيرين أو سنليدين وأنا صامر هذا كار يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسان شات لا نشهد بالله كده إن أهدي يسوع بدنا أيضا على قرصة كمتة وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هشي النبي وحي أهد العضباء مقعد الإهجري لا تصبغ ماذا لقد ديرين العضباء ومقعد هشي النبي أو عضباء الإهجري لا تصبغ لقما ديرين جرين لقما هرمري جرين أو لا تكاد تصبغ وشكراوي أو أنس نكي كورنا حميد الطويل يا وحلي لا تكاد مسجين تصبغ من لقد أريه فجاء أعرابي من البادية يمد على قعود له أو رتير أو صارنا يمد فسبقها هش النبي كهرمر قعود وحا لو استعمالها قيل متك إن لررته مارت قاري وقال في عمه قعود فسبقها قال كيف كديري هاشي فشق ذلك على المسلمين دارين تاس هاشي النبي لقى ديري مسلمين توار دبتي حتى عرفوا إلى النبي وقرتي إن لبسنا يا وجهودي فقال النبي وحيري حق على الله
alla waxaa xaq ku ah allaa yartafica shayun min addunyaa adduunyada wax ka mida inuusan saro marin ilaa wadacahu hoos u dhiga hadda adduunyada meeqaan soo marray imise baabuura noocan soo marray kuwa hoose milajanta d iyo maaragtay fulaan iyo hadda waxaa la maraa kuwa maaragtay buuxooda ka dheereeya soo maha shaygii kor maraba marka maalinuu hoos tegay waa marka sunno ilaahiya wax kasta xaqun cala allaahi anlaa yartafica shayun min addunyaa wax adduunyada ka mida inuusan saro marin ilaa wadacahu alla hoos u dhigayaa rawaahu lbukhaariyu taasna waxay tusinaysaa in marka tawaaduca la laasimo aan la kibrin wallahu aclam